wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in xalay gudaha magaalada ay ku kulmeen odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. odayaasha dhaqanka Hiiraan iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay ka wada hadleen inta uu socday kulankooda sidii xal loogu gaari lahaa xiisada ka taagan gobolka Hiiraan iyo dilkii taliyihii qaybta booliska ee gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo toddobaad ka hor lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Mucow Xalane. waxaana kulankii ay yeesheen labada dhinac uu ku soo dhamaaday mid fashil ah laguna kala tagay sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan. dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saaka sheegaya in dib loo xiray wadooyinka magaaladaas dhexmara oo maalmo ka hor dib loo furay kadib markii dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen magaaladaas. toddobaadkii hore ayaa dagaal culus waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo ciidamo booliis ah kuwaas oo taageersan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan dhawaana Maxamed Cabdi Waare oo u magacaabay xilka. muddo toddobaad ah ayaa gudaha magaalada Beledweyne waxaa ka taagnaa xiisad ka dhalatay xilka qaadista Waare uu ku sameeyay Dabageed. Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxaa xusid mudan inuu diidan yahay inuu xilka gudoomiyaha Hiiraan wareejiyo isaga oo sheegay in loo soo marin xilka qaadistiisa mid sharciga waafaqsan.